السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن مركو هوري iyo jimco wanaagsan Soomaaliya dhamaantiin khaasatan reer Soomaaliya mar rabo inaan hadalka badiyo laakiin waxaan jeclahay marka hore inaan idin la wadaago cod wiil Soomaaliya oo codsaday inaan magaciisa la sheegin xaalada amni dartooda oo ka waramaya shirkad ka hawlgasha Boosaaso iyo goboladaas bari sidoo kale waxaan rabaa inaan caawo wax yar idin kala wadaago imaaraad iyo dhibaatooyinka uu ka wado dalka Soomaaliya Boosaaso Muqdisho iyo Berbera intaba marka codkan marka hore ku hormaraya wiilkan waxa uu codsaday inaan magaciisa sheegin iyo meesha uu joogo toona xaalada amni darteed marka bal codkan marka hore dhageysano. Assalaamu calaykum walaashay waa salaamay anigu waxaan ahaan jiray horta in siyaasadeed meelo badan oo ka soo shaqeeyay gobolada Puntland baan u dhashay waxaan rabay inaan ku sheego arintan shirkadan xal dhahaa arintan qolyahan imaaraadka horta fara ku leh qoyska Soomaaliya siiba gobolada DB World waa aragteen ka dil wareegtay horay bil ugu jiday waxa jira shirkad la dhaho Sarisom inaan maqashin ma garanaye shirkad la dhaho Sarisom oo Puntland ka shaqeysa shirkadaas waxay leedahay ciidamo 3 kun gaaraya cadadkooda waana kuwa la soo shaqeeyay hadda ka hor 2 sano oo shaqeynayay shirkadaas waxa loo asaasay la dagaalanka burcadbadeeda waxaasna waxba kama jiraan shirkadaas oo khayraadka dhulka iyo badda bay gurataa ana indhahayga waxaan ku saaray oo wallaahi oo billaahi oo talaa indhahayga waxaan saaray 9 gaari baabuurtu waa weyn oo waaraadka ah baabuurtaas waxa ka buuxa ciideena kamid ah dhagaxuun iyo waxa kale ka buuxa waxyaalaha kale khayraadka la mid ah bay gurtaan waxaana loo dhoofiyaa imaaraadka shirkadaas waxay leedahay diyaarad iyo helicopterna way leedahay saldhig waxay ku leedahay gobolada bari ayl meelaha istiraatiijiga sida ayl iyo meesha ay dhahaan bariga fog xaafuun ilaa waxay ku leedahay gobolka mudug shirkadaas waxa la yiri waa la dagaalanka burcadbadeeda ana la soo shaqeeyay shirkadaasna waxyaalo badan macluumaad ka haya waxyaalaha badan aan uga soo tagayna waxa kamid ah musuqmaasuq niman imaaraada haysta nimankaasna haddaad weydiisid aad dhahday war arrintaasaan maaha waxay ku leedahay anagu waxa weey shirkad gaar ah maxay ka madax banaan dawladda marka walaalay waxaan ku weydiinayaa arrintan horta inaan ka hadashid shirkadan dawladda federaalka ah in arrintan hadda ka horna waxaan rabaa inaan soo bandhigo macluumaad badan ay shirkadaas u samayso khayraadka dhulkana iyo baddana way dhoofisaa wiilkan waa wada hadalay wax badan uu iiga warbixiyay runtii hadalkiisa inta saan rabaa inaan ku soo koobo dabcan shirkadan uu ka sheekaynayo dadka kulay reer Boosaasood iyo gobolada bari way ka warhayaan wuxuu kala ii sheegay hadda ka hor wiil wariyaaba ka hadlay buu yiri waa la xiray maamulka Puntland wuxuu ka qaban karayaa maysan jirin waxa iska leh imaaraad Bootaliya waa ciidan Soomaaliyeed sida uu sheegay 3 kun bay gaarayaan waa ciidankii shalay toole xabadeynayay dadkii mudaharaadayay sidaas si lamid ah waxa ay ciidan ku tababarataa imaaraadku Muqdisho marka xaaladahani soo baxbaxeen inay imaaraadku lu ku leeyihiin qaraxyada dhacaya inay isku dirka Soomaaliya maamuladeeda iyo federaalkeeda isku dirkeeda ay lu ku leeyihiin inay baarlamaanka lugta kula jiraan inay cid walba oo Soomaaliya xumaheeda ka shaqeynaysa ay ku qarash gareeyaan lacag waxa soo dhabi markay soo baxeen ayaa waxa isku dayaysa marka dawladda imaaraadku inaan la fahmin oo laga shakiin ciidanka ay tababaraysa Muqdisho ku tababaraysa qayb kamid waxay ku wareejisay dawladda federaalka laakiin taa waxaan leeyahay lagama aamin noqon karo shacabka Soomaaliyeed imaaraad wuxuu yahay hadda ayuu soo fahmaya kamana aamin noqon karaan ciidanka lagu sasabayo dawladda federaalka shalay toole sasabaata lamida ayuu imaaraadku sameeyay markii madaxweynuhu uu tagay Sacuudiga inuu imaaraadka xiriirka u gooyo ayaa kamid ahayd waxyaabihii uu kala hadlay dawladda Sacuudiga marka waxa Dubai joogay niman siyaasiyiin Soomaaliyeed hore soo ahaan jiray
oo imaaraadku uu lacag kusoo fangareynayay si uu soomaaliya isugu diro nimankii wuu soo baaciyey marka uu kasoo saaray dubai wuxuu yidhi iga taga soomaaliya waxaan rabaa inaan xumaanta ka daayo sacuudigana wuu la hadlayo wuxuu yidhi igala hadal dowladda soomaaliya ma doonayo inay dowladda soomaaliya xiriirka ay jirto sacuudiga ayaa kala dhex galay marka ayaan dhaweyto markii safiirka soomaaliya u fadhiya dubai uu la shirayay madaxweynihii hore ee soomaaliya waxay ka wada hadleen inaysan soomaaliya xiriirka u jari karin imaaraadka qof kastoo marka soomaaliya danteeda aan ka fekerin laakiin lacagta maanta la siinayaa ay qiimo la leedahay imaaraadku lacag buu siinayaa waxaa ka hadlay miidiyahan social mediahan madaxa bannaan dabcan idaacadaha goonida loo leeyahay lacagta unbay ka fekeraan kama hadlaan aayaha dalka soomaaliya marka miidiyahan madaxa bannaan ee social mediaha ah khaasatan bageka lagu magacaabo gobsoor oo aan aniguba ka mid ahay ayaa dhalinyarada u shaqaysa bagekaas taleefon usoo direen dadkii uu dhalay safiirka soomaaliya u fadhiya dubai waxay dhaheen lacag inta allaale intaad rabtaan sheegta laakiin aabbahayo weeye ninkaa safiirka ah faraha ka qaada ma sheegi kartaan waxba kama qori kartaan meel walbana lacag maxaad rabtaa sheego ayaa ka shaqaynaysa lacag maxaad rabtaa sheego qof kastoo dhuuniyahoo halkaasi u dalooshana wuu qaadanayaa soomaaliya waa dal faqiira qof kasta oo lacag lagu iibsan karo waa la gadanayaa ninka askariga waa la gadanayaa ninka siyaasiga waa la gadanayaa ninka xilka haya waa la gadanayaa ganacsatada waa la gadanayaa waxa la ii sheegay shalay toole dadkii ku shirayay boosaaso ee nimankii ganacsatada ahaa ee lahaa imaaraad waanu iska dhicinaynaa ee dowladda federaalka ay soo faragasho arrimahan waxaa la ii sheegay in hadda la leeyahay maxaad rabtaan imaaraad lacag wuu hayaa waa maxaad rabtaa qorshe kale ma yaqaano dowladda turkiga wuxuu ku burburinayay lacag ayaantii dhawada inqilaabku ka dhacaya taa wada ogtihiin dowlad kasta oo islaamana wuxuu ku bixiyaa lacag sidii ay ku burburi lahayd soomaaliyana 27 sano isaga ayaa lacag ku bixinayay waxba kama aynaan ogeyn laakiinse hadda unbay dadku baraarugeen ayaan dhawanin dowladda imaaraadka ku jira waad ogeydeen inuu twitterkiisa kusoo qoray qaraxyada ka dhacaya muqdisho isla markiiba uu qaraxa ka hadlayna waati qaraxa uu dhacay ka dhacay muqdisho hoteelka ee ugu dambeeyay kii soobe ayay qayb ka haayeen marka imaaraadku cir iyo dhul weerar ah ayuu soomaaliya ku hayaa qofkii hore ugu baraarugsanaa iyo kii la hadda ogaan lahaayow soomaaliya cir iyo dhul weerar ah buu imaaraadku ku hayaa kamana aamin noqon karno ciidamada ay tababarteen ee ay ku wareejinayaan maanta dowladda federaalka isaga sasabayaan xoogaa waxaa u muuqatay inaysan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ahayn dad lacag aqbali karaa 80 milyan ee dollar sacuudiga ee uu farmaajo diiday bay ku quus qaateen waxay dhaheen labadaa nin qarash ma qaadan karaan laakiin wax kastoo aanu iskaga sasabi karno diyaar baanu lanahay ciidankii ay tababaranayeen 2 sano ee ay lahaayeen annagayna ilaalinayaan waa kuwii qayb ka mid ayaan dhawood ku wareejinayay markii la arkay xoogaa shacabku inuu waxyaro fahmayo laakiinse shacabka soomaaliyeed goorma wax fahmaa horey soomaaliya hadal u dhamayso waxa la yidhi tukow goormaad wax fahantaa suu yidhi markay 2 nin seegto سالير حونشو أدوغنا غورماد wax fahantaa markaasay tiri markay 2 dhagax dhaafto 2na dusheeda ku dhacdo Soomaaliya xunshada way ka daran tahay maanta 2 dhagax way dhaaftay 20 dhagaxna way ku dhacday boqolna waa loo laayay wax kasta oo dhibaata oo ka dhacaya Soomaaliya imaaraad ayaa ku ka haduu qarax dhacayo hadii la dagaalanka al-shabaab ay tahay hadii ay tahay يعني isku horkeenka maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka isku horkeenka shacabka iyo dawladda federaalka isku dirka Soomaaliya iyo kala laaluushida waxa soo dhan imaaraad ayaa ku ka dadkeenuna halkaas ay u dhimanayaan laakiinse dadka godka ku dhacaya iyo dalka godka ku dhacaya waa Soomaaliya iyo dadkeeda dadka u kici kara waa shacabka Soomaaliyeed khaasatan waa dhalinyarada maanta wadanka Mareykanka hadaan tusaale soo qaato oo aad wada ogtiin waxa deganaan jiray dad la yiraahdo hindida cascas maanta waxa lagu xereeyaa meel way dulaysan yihiin waxay ku xereysan yihiin meel siliga ilmahay dhalaan waa laga qaataa $1 baa la siiyaa khamriga ay ku iibsadaan dhulkana iyaga iska lahayo deganaan jiray waa dad noloshiina aan joogin aakhirana aanan tagin Soomaaliyana saasa lagu wadaa badeedii baa la iibsaday shalay toole waxaan ka xumahay markii ay socotay gorgorinta badda ee lagu kala baayacanayay marna Kismaayo marna Boosaaso
reer Puntland indhahay ka fiirsanayeen badani ma aha badii Puntland kaliya waa badii Soomaaliyeed weeyaan qof kasta oo Soomaaliya iyo mid ka dhalan doona 1000 sano kadib ayaa iskale markaan shalay lahayno halkan ka hadlaynay oon lahayn war hal laga qabto Cabdiweligaas waxa uu sameeyo dad badan baa shafka garaacay oo laha madaxweynaha iyaga horumar buu noo soo wadaa mashaariic horumarineed weeye miyaad ka xuntihiin waxaad moogtahay Dubai waxay la dagaalamaysaa dekad Soomaaliyeed oo la dhiso markaasaad waxa leedahay dekada Boosaaso caalami baa la iga dhigaya war caalami marka lagaga dhigo dekadaada Boosaaso soo ma ogid inay xirmayso dekadaha Dubai inay xirmaan miyuu ka talin karaa imaaraad midaas ma aqbali karaa oo aqli sax inaad ku fikirto ayaa loo baahan yahay waxaan ku leeyahay shalay waad u sacbinayseen oo waxa la haydeen madaxweynaha iyaga waxa uu noo soo wadaa mashaariic horumarineed maantana waxaad leedihiin dawladda federaalkayna soo gaad dadka waxa fiican marka hore aqli saafiya oo qabiil ka madax banaan oo qoqob iyo maamul goboleed ka madax banaan inay ku fikiraan dantooda iyo mustaqbalkoodana marka hore ay fiiriyaan laakiin goor ay tala faraha ka baxday oo badii socoto la saxeexay ayaa waxa la leeyahay waxba kama soo degin goormad baraarugaysaan dadku waxa fiican marka hore inay og yihiin waxa soconaya marka hore ee wax la kala baayacanayo maxaad u hurudaa waad ku ciweyday goor aanay waxba gacanta kuugu jirin sidii badii uu saxeexay Cumar Cabdirashiid ee maanta maxkamadda heeg taala ee dooda ku jirta ee qarash iyo waqti iyo lacag intaba maanta ay ku baxayaan shalay toole markii la iibinayay hadii la kici lahaa heerka maanta meynaan gaadhnin maantana markii shalay toole uu dekada berbere saxeexayay Siilaanyo uu dekada Boosaaso saxeexayay gaas marka dadkii lahaa mashaariic horumarineed baana loo soo wada dhulkaana loo horumarinayaayow maanta waxa leeyihiin xagee baan wax ka qabanaa maxaan sameynaa faraa waxba nooguma jiraan laakiinse wax fahamka marka hore ayaa aad ugu yar shacabka Soomaaliyeed adduunyada waxa bedela waa kacdoon shacab siyaasi iyo madax midna maanta waxba nooma qaban karaan laakiin kacdoon shacab oo meel walba min gobol ilaa tuulo ayaa lagu qaban karaa maanta waxa dhacayna lagu soo celin karaa waxba ha oranina farmaajo soo faragasho ee khayrow noo kaale maxay ka qaban karaan kacdoon shacab iyo shacabku inay dhulkooda u istaagaan ayaa loo baahan yahay dhulka ayaa iskale adiga iskale gaas ma laha Siilaanyo ma laha farmaajo ma laha shakhsiyaad bay ka yihiin shakhsiyaad adiga kula mid ay ka yihiin laakiin dadka shacabka ah oo dhulka u dhashayo dadka dhulka iska lahow quruumaha soo socday dhalan doona adiga ayaa dhaxal siin kara ama gumaysi ama dhul nadiif ah inay u yimaadaan adigana aad u noolaato si xurriyada oo aan cid kugu haysan tartiib ay carabti idin kala gadanaysa tartiib maanta berri toole bad maalinta ku xigta maalinba in yar eg ciidan 3000 ah oo aan ka amar qaadan Puntland marka uu ka shaqeynayo gobolada bari oo aan qof ka hadli karin kii ka hadla la oranayo waa la xirayaa wuxuu wiilku ii sheegay hadday dawladda Puntland kelmad soo dalacdo waxa la oranayaa meeqaad rabtaa dadkii mudaharaadyadii shalay toole waa la soo kiciyay maantana ganacsatadii baa la yiri meeqaad rabtaan shacabku maxay leeyihiin iska farfadhiista guryihiina iska jooga dhibaato ma jirtee dekadii way shaqeynaysaa waxaas durba laga dhaadhiciyay waxa la rabaa in la idin seexiyo shalay 500 baa dhulka la gooyay war isu soo kacay maalin qura theaterka la isugu yimi maalin ka dambaysa cidi kama hadlin 4 casha maracas madaxa lagu xidha dadka sida loogu wado ma aad miyaydan aaminsanayn bari ka maalin adduunyada inaad ka baxaysaan maalinba 100 marka la dilo oo maalinba dekad la qaato war aqligiinu miyuusan shaqeynay dad yahow sidee waxin ka yihiin ilaahay intaad ka baqdaan dal iyo dibad waxaan idin soo jeedinayaa Soomaaliyeey dal iyo dibad hadii aad rajo dalkiina aqabtaan meel aad joogtaan kacdoon shacab hala bilaabo war kacdoon shacab adduunka waxbuu ka bedelaa dad yahow wax fahma kacdoon shacab adduunka waxbuu ka bedelaa mashaariic kaaga ma baahna oo maalgelin kaaga ma baahna waa iskuulada oo la xiro dugsileed oo la soo fasaxo iskuulaadka dhan oo la soo fasaxo dhalinyarada oo dhan oo isku soo baxda dariiqyada inaad isku soo baxdaan taayiro inaad ku horgubtaan meel kasta oo imaaraad joogo meel kasta oo nin caad qaataa aad ku ogtihiin inaad taayiro ku gubtaan ayaad wax walba ku bedeli kartaan laakiin farmaajo kan gaas wax alla waxay idin qabanayaan ma jirto haba yaraatee ha ka suginina kacdoon shacab hadii aydan samaynin reer baa uu yaa kulaha